iyadoo maalmihii la soo dhaafay waddanka Jabuuti ay ka socotay wadahadalo u dhexeeya maamulka Khaatumo ee Somaliland ayaa waxaa maanta la soo gabagabay wajigii saddexaad ee wadahadalada labada dhinac. Markii uu soo dhamaaday waxaa la soo saaray qodobo kala duwan oo ka soo baxay shirkaasi. Gudoomiyaha baarlamaanka Khaatumo Maxamuud Sheekh Umar Xasan oo ah gudoomiyaha wafdiga maamulka Khaatumo hogaaminayay ayaa nooga warramay qodobadii ka soo baxay. shirkan waxaa ka soo baxay qodobo 8 muddo 5 maalmood ama 6 maalmood maanta ay ugu dambeysay ahna way socdeen ilaa 25 bishii maanta. qodobka ugu horeeya waxaa la isla qaatay in si sugan looga wada shaqeeyo arrinta nabadeynta ee u dhaxaysa beelaha walaalaha ah ee BAARLAMAANKA iyo Kayaad si buuxdana loo taageero iskuna garab taago guddiga nabadeynta ee hawsha gacanta ku haya. wuxuu ahaa wixii faragelin ah gudaha iyo dabaddaba ee waxyeeleyn kara nabadeynta labada beelood meel looga soo wada jeesto. qodobka labaad waxaa si buuxda la isla qaatay in howlaha abaaraha iyo horumarinta deegaanadaas la iska kaashado si wada jira. qodobka saddexaad waxaan si wada jira ugu baaqaynaa in hay-adaha caalamka iyo kuwa maxalliga ahiba ay ka howlgalaan dhammaan gobollada iyo degmooyinka aanay horey u tegi jirin, halkaas oo ay iminka wax nabadgelyo darro ahi ka jirin, loona sameeyo guddi wada jir ah oo dabagal ku samaysa. waxaa la isla qaatay qodobka afraad in maamul daadejintu aasaas u tahay nabad ku wada noolaanshaha iyo kobcinta awoodda bulshada. sidaas darteed waa in la gaarsiiyo oo lagu abuuro maamul iyo adeega bulshada meelaha aanay hore uga jirin, hay-adaha samafalkuna doorkooda ka qaataan. number 5 in meel looga soo wada jeesto wax kasta oo caqabadayn kara hannaanka wadahadalada labada dhinac. 6 in wixii dhiig iyo dhaqan ku saabsan lala kaashado golayaasha dhaqanka si wada jira. 7 waxaa la isla qaatay in guddigii farsamadu soo diyaariso qabashada shirka dambe, soo laxayinto goorta iyo goobta lagu qaban doono shirka dambe. 8 waa in waxaa la isla qaatay in yoolka wadahadaladan uu saldhig u yahay is-aaminid, wada shaqayn, nabadgelyo iyo horumar dhinac walba ah. gudoomiyaha wafdiga Somaliland Maxamed Mixile Boqore, gudoomiyaha wafdiga Khaatumo Maxamuud Sheekh Umar Xasan. shacabka reer Khaatumo waxaan ugu baaqayaa dalkiina idinkaale, dadkiinana idinkaale. haddaad midowdaan oo aad mowqifkiina midaysaanna idina wax idinkama hayn karto. midowda baan leeyahay, umuurkiina iyo maskaxdiina iyo maalkiina iyo taladiinama mideeya oo ilaahay ka yaaba. marba laba qof intay meel istaagtay aniga ma matelayo, aniga ma matelayo hadalile dadku uu midooda. markaad midoodaan baad wax noqonaysaan oo tafeeraalka wax ka noqonaysaan oo kale meeshii kasta ee aad u baahataan baad wax ka noqonaysaan. war dad midooba noqdo oo dad noqda.